السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال كسو دوادا برنامجka martida toddobaadka oo hadaha iyo kale aad ka daawataan TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho. barnaamijka aniga Cali Nuur ayaa soo jeedinaya. daawadayaal inta aanu ama sida aanu ka wada warqabno bartamihii toddobaadkan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shaacisay tirakoob qiyaas ah ama sahan ah oo lagu sameeyay tirada dadka Soomaaliya. tirakoobkan waxa uu ama qiyaastan tirakoobka ah waxa uu dadka Soomaalida ah ku qiyaasay in ay yihiin 12 milyan iyo 300 oo kun oo qof. barnaamijka waxa aanu isku weydiin doonaa sidee loo sameeyay tirakoobkan qiyaasta ah yaa ka qayb qaatay maxaase bulshada Soomaaliyeed faa'iido ah uu u leeyahay. barnaamijka waxa marti igu ah wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdiraxmaan Cayinte. kusoo dhawo barnaamijka. ma santa caalmar ugu horeyn inta aanan u galin tirakoobkan Soomaalida lagu sameeyay tirakoobka dalalka lagu sameeyo maxaa faa'iidaha ayuu u leeyahay bulshada la tirakoobayo muxuu ka dhigan yahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore Cali Nuur waa mahadsantahay adiga iyo TV-ga Universal fursadan ummad markii la tirakoobayo waxa dhowr arrimood ay muhiim u tahay. kow in xog guud laga helo qiyaasta ummadaasi inta ay tahay sida ay u sii kala qaybsantahay bulshadeeda lab iyo dhadig caruur iyo ciroole reer miyi reer magaal bal xog guud sawir in laga haysto iyaduna inay iska haysato ummadda kale ee ku dhex nooshahay caalamkuna inay sawir ka haystaan intay leeyihiin. kow labo in tirakoob markii la sameeyo waxa lagu jaangooyaa arrimaha dhaqaalaha kuwa siyaasadda iyo kuwa bulsho. dabcan kan anaga midka hadda aan soo bandhignay tirakoob ma ahayn wuxuu ahaa sahan qiyaaseed ayuu ahaa. saddex midda muhiimka iyadana waxay tahay xogta noocan ah waxay sahlaysaa in tirakoob rasmi ah la sameeyo hadda anagoo kale markaan iska hadlayno maadaama aanan qiyaasba iska haysan tirakoob ma samayn karno. waxaan u aragnay marka jaranjarada meeshan ka koreynay oo ah ama wajiga koobaad ee sameynta tirakoobka in qiyaastan inuu yahay arrimahaas ay muhiim ugu tahay in dal loo sameeyo tirakoob ama xitaa qiyaas loo sameeyo. sidee loo sameeyay tirakoobkan muwaafaqsan yahay sida tirakoobyada qiyaasta ah ama qiyaasta dunida loo sameeyo. horta waxa muhiim ah su'aal muhiim ah dhowr arrintan in laga ogaado. hawshan waxay bilaabatay sanadkii 2013 muddo 2 sano iyo xoogaa hadda laga joogo ayay bilaabatay. laba wasiir oo aniga iga horeeyay ayaa hawshan soo bilaabay dhamaystirayna abaalkeeda runtii waxa iskale wasiiradii iga horeeyay gaar ahaan wasiirkii iga horeeyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hawshan dhamaystiray. hababka loo maray waa hab ay markii la bilaabay ku heshiiyeen dowladda federaalka ah dowlad goboleedyadii markaas dhisnaa hay'adda UNFPA oo gacan ka siinaysa xagga farsamada iyo xagga dhaqaalahaba in la sameeyo qiyaastan waa ku heshiiyeen. waxaa kaloo muhiim ah habkani wuxuu ahaa hab adduunka meelaha annaga nala mid ah tirakoobyada laga sameeyay ama qiyaasyaha laga sameeyay loo raacay wax hadda Soomaaliya kaligeed loo sameeyo ku gaar ah runtii ma jirin. marka hababkaas ayaa loo raacay waa habab cilmi ah ma ahayn jaantarogan macnaheedu laakiin taas marnaba ma ahayn ilaa haddana ma ahan in 100% qiyaastan ay saxan tahay. qoraalka ay wasaaradda soo saartay waa ku caddahay daldaloolo uu leeyahay qayb walba oo kamid ah qaybaha bulshada ee la qiyaasayna waxa ku jirta boqolay khaldan tiro khaldan oo yani waxay dhahan margin of error oo la leeyahay intaas ayaa 100% khaladka qaybtan ku jira. talaabooyinkii lagu sixi lahaa khaladkaas lagu turxaan bixin lahaana qaaditaankooda usbuucyada soo socda ay bilaabanayaan haddii alla idmo. marka qodobadaas waxay muhiim u yihiin. waxaad moodaa waxoogaa in lagaba dhigay tirakoobkii in la sameeyay oo jaangooyadiina beri ay bilaabanayso ujeedaduna runtii taa ma ahayn sawir horu dhac ah in laga helo ayaa muhiim ahayd. inta aanan ka bixin farsamada lagu sameeyay qiyaastan waxa ku jirta in la isticmaalay satellite
satellite kana waa aalad kor wax ka sawirta oo muujin karta guryaha mararka qaarna tirada dadka muujin karta meesha ku nool dad badan waxay isweydiinayaan ajaanib fara badan oo wadanka joogta oo ay ciidamo ku jiraan tiradan ma ku jiraan horta hababka loo ururiyay xogtan satellite-ku waa mid ka mid ah talaabooyinka la qaaday satellite-ku waxa uu lagu ogaadaa tirada guryaha ku yaala degmo ama tuulo muayana ku yaala dad ma tiriyo marnaba sawirada satellite-kuna inta badan dadka si wanaagsan uga muuqdaan laakiin guryaha si wanaagsan uga muuqdo guryahana waa la tirin karaa markii la tiriyana guryihii waxaa lagu dhuftay qiyaasta inta dhexdhexaad ahaan qoyska Soomaaliga ah uu noqon karo oo ilaa 5 qof ah qoysaska badankooda waa laga yaabaa inay ka badan yihiin kuwana ay ka yihiin laakiin meesha dhexe in laga soo qabtay cid ciidamo ama qof jid socota satellite ku tirisa ma jirto 4,000 oo qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalka dacaladiisa ku nool ayaa la tababaray muddo dheer la tababaray kadibna laga howlgeliyay magaalooyinka waaweyn oo la tagi karo waxay intay tageen ay waxay sameeyeen random sampling waxa la yiraahdo oo ah hab kamid ah hababka loo ururiyo xogta noocan oo kala ah oo ah in dhowrkii guriba ay guri tagaan iyagoo dabcan qiyaas ka qaadanaya dabcan hab cilmi oo loo raacno waa leedahay habkaas cilmiga ah ay u raaceen meelaha qaarkood oo miyiga oo kale oo hadda su'aalaha iyo mugdiyada ugu waaweyn iyo hadiiba daraasadu ay daloolo leedahay daloolada ugu waaweyn meesha ku jiraan waa miyiga waxa dadka laga qiyaas qaatay meelaha ceelasha ah oo ay u soo arooraan gaar ahaan dadka miyiga degan marka taas oo kale su'aalo badan ay dhinacyada qaarkood ka keeneen waana sax in su'aalo laga keeno oo dabcan sidaas uma wadaan hatta tirkoobyada rasmiga ah oo dalalka annaga naga horumarsan ay sameeyaan waxa ku jira qayb khalada margin of error mar walba ku jira marka amisom la tiriyay iyo dad jid socda la tiriyay satellite lagu tiriyay warka suuqa yaalo ma dhaafsiisna meelaha ay dawladdu maamusho in dhalinyaro loo diray waa wax la fahmi karo laakiin waxa jira goobo aysan dawladdu maamulin ilaa iyo iminka iska bada 2014 iyo 2013 goobahaasi sidee tirakoob looga keenay sidee loo qiyaasay كو ساتلايت كوالا استعمالي دقمين كواوين ودلكو دانا بتها لو استعمالي إن قريهان لغو تري كدبنا لغو دفتو حد حاد قويس كسومالي دا انتو نوغان كارو لابو ميلاحاس qaarkood oo dawladdu aysan gacanta ku hayn ama dawlad goboleedyadii markaas kala shaqeeyay aysan gacanta ku hayn iyaga ruuxooda dad waa loo diray xilliga ay socotay xog ururintu dadkaas dabcan intay banaanka soo dhigeen maaragtay hawshaas aan wadna ma aanay dhehaynin laakiin tirada ugu badan ama qaabka ugu badan oo loo isticmaalay wuxuu ahaa in satellite-kaas guryaha lagu tiriyo kadibna dad lagu dhafto waxaa muhiim ah in la ogaado in marar badan hal si kaliya aan la isticmaalin waxaa dhici karta magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliyeed in dadna dhalinyaradaas la tababaro kamid ay tageen kadibna ay random sampling ka soo sameeyeen kadibna ay haddana siyaab satellite-kina lagu kabay si labadiiba iloodba looga helo mararka qaarkood waxaa dhacaysay in lala fariisto maaragtay hogaamiyayaasha beelaha Soomaaliyeed tuulooyinka iyo degmooyinka ay joogaan iyaga naftirkooda qiyaas laga qaato waxaa kaloo kamid ah muhiim ah isbitaalada ilaha wax laga ururiyo waxa kamid isbitaalada waxa kamid iskuulada waxa kamid xog ay hayeen hay'ado kale oo caalami ah gaar ahaan hay'adaha qaramada midoobay ee samafalka ka shaqeeya oo iyaguna xog u gooniya ururinaya xogahaas oo dhan ilaa iyo 11 il ayaa inta la isu keenay ayaa xogtan qiyaastan laga soo saaray waxa la sheegaa inuu waqti u dhaxeeyay xilliga la shaaciyay qiyaastan iyo xilliga ay soo baxday wasaaraddu ma waxay ka qabtay in ay mashaakil kaga imaan doonaan cabsi miyaa jirtay in ay dib u dhacday ma jirtaa dabcan waxa la dhameystiray dabayaaqadii sanadkii hore wasiirkii iga horeeyay warqad ayuu saxiixay oo si rasmi ah uu amrayo in la faafiyo xogtu sida ay ahayd dawladii horeyna runtii go'aankaas ka dawlad ahaan waa u gaartay in la faafiyo waxay ku soo aadantay ayaan daro markii khilaafka siyaasadeed uu dalka ka dilaacay taasna waxay curyaamisay
itaalkii dawladdu ay u lahayd markaas in ay xogtan oo kale sii dayso dabcan dawladdu mar walba walwal waa ka qabtay in dood xogtani ay dood dhalin karto talaabooyin walwalkaas lagu yareynayana waa qaaday tusaale ahaan anagu hadda markaan nimid markiiba anigu waxaan safar ku tagay dowlad goboleedyada jiro oo dhan ku meel gaarka ay ku hore u jiray ajendayaashii aan kala hadlay arrintan ka mid ahayd in aan rabno in aan arrintaas ka wada shaqeyno mabdiyan waan isla qaadanay inaan ka shaqeyno waxaan ku marti qaadnay kulamo aan leenahay doodaha la qabo hadeertaan aan miiska soo saarno meelaha dulduleeladu ka jiraan UNFPA-dii naga caawisay farsamo ahaana waa u yeernay ayaan darro ma dhicin in la wada yimaado sidii aan u rabnay dowlad goboleedyadu ay wada yimaadaan ma dhicin sababo iyo duruufo kala duwan oo jira awgeed laakiin dadaal ma yaraysan in bal marka hore aan isku dayno in meelaha wax ka jiraan ama sheegashooyinka jiro aan ka garawno kadibna aan niraahno aan hore u dhaqaaqno laakiin anagu marnaba mid uma qasdin uma aanan qasdin xogtan ama qiyaastan la soo ururiyay in la siyaasadeeyo oo la yiraahdo ummadda 4.5 loogu qaybiyo ama maaragtay dadkii waa la kala badiyay ama waa la kala yareeyay 4,000 qof oo Soomaaliya iyo dad ajnabi ah badan arrintan ka shaqeeyay ummadda muslimka ahna sidii nabiga kaleey salaatu wasalaam noo sheegay xumaan isku ma raacdo uma haysto 4,000 qof oo Soomaaliya inay been isku raaci karto inta la eeg inay wax ka khaldami karaan waa dhici kartaa marka annagu si isla eg loo qaybsado tan waa xog cilmi ku salaysan khayraad dabiici oo la qaybsanay ma ahayn taana marnaba runtii uma aanan qasdin haddana uma qasdayno laakiin waxaan haddaba UNFPA annaga talaabadii labaadan qaadnay oo inaan isugu yeerno dowlad goboleedyada ka qayb galay warqadan ay ku caddahay maaragtay inay ka qayb galeen markii hore inay dadkooda farsamada u qaabilsanaa soo dirsadaan kadibna doodii si cilmi aan u furno daldaloolada jira aan samay aan awdno mid muhiimka ah waxay tahay tirakoobkii rasmiga ah ee dastuuriga ahana waajibka dastuuriga ahana sidii aan u ambaqaadi lahayn waajibkiisa inaan falkeeda inaan hadda galno maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada qaar durba ay ka jawaabeen arrintan waxay soo bandhigeen tirakoob gooni ah oo iyaga sameeyeen UN-ka iyo hay'adaha qaramada midoobeyna aysan dhaleecaynin ugu yaraan ma ka baqaysaan in tirakoobkan qiyaasta ah aad soo bandhigteen uu qalalaasa siyaasadeed ka dhaliyo dalka طبعا هدفكيني قصدكينو تاما أنا runtii rabno dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahna calaaqad xoog laha ka dhaxeeyo wada shaqeyn xoog laha ka dhaxeysa inta waa kulanaa intaas waa markin oo arrimaha naga dhaxeeyo oo tan ay kamid tahay waa ka wada hadalnaa uma haysto qalalaasa siyaasadeed oo saas u xoogan runtii mana rajaynayno runtii inuu ka dhasho dabcan de tirakoob iyaga u gaar ah haday samaysteen oo ay soo bandhigayaan runtii taasu de iyaga go'aan iyaga ka go'aa anaga hadda wax noo yaalo runtii ma ahan kii aan ka wada shaqeynay ayaa anaga muhiim noo ah kii aan ka wada shaqeynay oo markii hore dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyeen dowlad goboleedyada kaasa runtii muhiim noo ah kaasa anaga na khuseeya runtiina aan waxay la tahay mid muhiimka waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay isla fahamto waxyaabaha qaarkood hadii mar walba xagal siyaasadeed kaliya laga fiiriyo waxa dhici karta meesha aan joogno in aanan ka ambaqaadin boon dowlad aan noqon waxaan ka garaabayaa in ummadda Soomaaliyeed kalsooni darro ay ku kala dhex jirto xoog leh asalka kala sheegashadahan oo dhan waxay tahay kalsooni darradaas ku jirto waa wax laga garaabi karo mas'uuliyad dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo culimo iyo caamo leh oday dhaqameed leh u taalo waay kalsooni darrada Soomaalida in laga bixiyo habeenii maalin isku xigta ma dhacayso muddo dheer ay u baahan tahay talaabooyin badan in la qaaday u baahan tahay inta nooga aadan anagu waan ka abaarayna tusaale ahaan dadaalka ah inaan sameeynay inaan dowlad goboleedyada hadda u tagnay oo aan u safarnay oo aan arrintan kala soo hadalnay oo niri inaan iska kaashanaan rabnaa kadibna aan shirar halkan ka dhacay ku marti qaadnay waxay naga ahayd kaliya hawshan inaysan noqon mid dowladda federaalka ay iskala orado kaliya laakiin mid la isla leeyahay natiijadu inay noqoto
ujeedada qiyaastan tirakoobka ma ka mid tahay in nidaamka 4.5 wax lagu qaybsado laga guuro loo guuro gobol walba tira ahaan in loogu dhufto waxa uu xaq u helayo maadaama la ogaaday tirada dadka ku nool gobol walba la qiyaasay ugu yaraan runtii ujeedooyinka uu leeyahay qiyaastan ay leedahay waaba ka soo hadlay in xogta dadka Soomaalida xog hordhac laga helo tiradooda guud intee la eg tahay in wax lagu dul dhisto oo tirakoobka rasmiga ah ee hadda dastuuriga ahna laga rabo in la sameeyo ay u tahay go'aamada kale ee ah 4.5 ma laga guuraa ma loo guuraa ma la ballaariyaa waa go'aamo siyaasadeed waa kuwa u baahan dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintooda sidii shalaba ay u qaateen in ay haddana maarkin uga guuraan dabcan dal maaragtay isku filan oo dawladnimo dhaba leh mustaqbalka markaan rabno inaan u guurno oo dawladnimada iyo sumcadeeda iyo sharafteeda ay xoogaysato kama maarmi doono in aan qaybsiga iyo dawladnimadu ay ku saleysnaato kartida ashqaasta markaas joogta aanayna ku saleysnaanin awood qaybsigan hadda ku dhisanaad moodo inuu meelaha qaarkood caqabada keeni karo laakiin marxaladda hadda aan ku jirno oo ah kalsooni darro ummadda inay ku kala dhac jirto dib u heshiisiintii aan dhamaystirnayn kama maarano inaan wax isku wadno ummadda Soomaaliyeed in la isku wado lagama maarmo waa marxalad kamid ah maraaxishaas horena dabcan 4.5 uma ahaan jirin mustaqbalkana waxa dhici karta in go'aan la gaaro ah in runtii in laga guuro laakiin hadda hadafka daraasadan ma aha kaas 2016 way soo dhowdahay waxaana la filayaa in doorashooyin la qabto doorashooyinkaas in loo isticmaalo qiyaastan tirakoobka lagu sameeyo dadka ma laga yaabaa doorashooyinkaas waa dastuuri waajib dastuuriga oo dawladda u yaala iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan in dalka ay doorasho ka dhacdo qaabka ay u dhici doonto qaabka loo mari doono maaragtay inay suuragal noqon doonto in qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo dalka ku nool codkiisa si xor oo xalaal u dhiibto iyo in kale wili su'aal aan noo cadeyn waay oo hadda aanan madashan runtii uga jawaabi karin waxayna u taalaa qayb ahaan su'aashaas jawaabteeda ummadda Soomaaliyeed si guud si gaar ah dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo hadda golaha wasiiradu ay ansixiyeen loona gudbiyay golaha baarlamaanka iyaga u taalaa su'aalaha noocaas runtii inay ka soo jawaabaan jaangooyin siyaasadeed iyo mid dhaqaale hadii laga hadlo qiyaasta sahankan la sameeyay waxay wax ka tari doontaa tirakoobka rasmiga ah ee soo socda hadii alla idmo la sameyn doono markaas ayaa wax lagu jaangooyin karaa natiijada kaas ka soo baxday laakiin kan waa qiyaas waa horudhac waa aadan markin oo arintaas hoosta u xariiqnay ka wasaarad ahaan xilli aad u qorsheyseen tirakoobka dhabta ah xilliga uu dhici doono ma jirto waxaan u qasteynaa hadii ilaahay idmo in sanadka soo socda 2016 tirakoobkaas uu bilowdo dabcan hawl badan ayaa ka horeysa oo farsamo u badan marka hore in la qabto farsamadaasna in la naqshadeeyo u baahan tahay taasna hadda usbuuc ama 2 usbuuc soo socota gudahooda hadii alla idmo ka howlgali doonaa kadibna waxaan soo bandhigi doonaa dhabihii aan u mari lahayn in tirakoob rasmi ah dalka ka qabsoomi karo qiyaastan sahanka ah waxyaabaha ay sida goonida ah hoosta uga xariiqday ama muhiimad gooniya ay siisay waxa kamid ah barakacayaasha dadka gudaha wadanka ku barakacay oo si faahfaahsan ay uga hadashay ma jira qorshe maadaama la ogaaday tirada dadka barakacayaasha iyo noocyada ay kala yihiin iyo meelaha ay ku nool yihiin qorshe ay wasaaraddu u hayso oo dadkan in dib loogu dajiyo la doonayo su'aal aad wanaagsan cali nuur qiyaastan waxyaabaha ka soo baxay waxa kamid ah 10% in ku dhow shacabka Soomaaliyeed inay barakacayaal yihiin runtina arintaasi murugo iyo xanuun xoog leh anagoo dhan ugu leedahay dadkaasuna yihiin dadka ugu nugul ummadda Soomaaliyeed laakiin mid kale oo taa ka sii weyn ka soo baxday iyadan oo ah 74 waa 4 meelood markii loo dhigo ummadda Soomaaliyeed 3 kamid ah daadoodu 30 ay ka hooseysaa dhalinyaro ay u badan yihiin annaga ka wasaarad ahaan waajibaadkeena dastuuriga ah waxa kamid ah inaan qorshe qaran dalka u sameeyno waxaan hadda bilownay naqshadeynta wax u dhigma qorshe qaran oo la yiraahdo qorshaha yareynta saboolnimada qorshahaas yareynta saboolnimada oo isna sidii qiyaastan oo kale horudhac ugu noqon doona sameynta qorshe qaran xooga waxaan ku saari doonaa
labadaas qaybood oo bulshada ah dhalinyarada oo boqolkiiba 30 boqolkiiba 75 in ku dhow ay ummadda Soomaaliyeed hadda qiyaastu ay muujisay inay yihiin iyo barakacayaasha oo boqolkiiba 10 in ku dhow ummadda Soomaaliyeed yihiin dadkaas qaybna ay aad u nugul yihiin qaybna ay yihiin dadka aan u baahanahay dawlad ahaan iyo dad ahaanba inaan maalgashano waxaan ka shaqeyn doonaa inaan insha Allah taala qorshahaas aan soo bandhigi doono markaan dhameeyno inay aad uga dhex muuqdaan sidii wax loogu qaban lahaa waxaaba kamida qorshahaas aan wadno wax la yiraahdo xalka dadka barakacayaasha ah solutions for the displaced ayaa kamida marka si gaar ah runtii isha ugu haynaa laakiin waxaan isleeyahay arintaas xogtaas waxay noo ahayd anagoo dhan xusuusin dadkeena qayb badan oo kamid ah inay dhibaato ku nool yihiin waxyaabaha ay dawladda Soomaaliya u ololeyso sanadkii ama labada sano u dambeysay waxaa kamid ahaa maalgashi hadii ay noqon lahayd dadka Soomaalida ah iyo dadka ajnabiga ah ee doonayo inay maalgashi ku sameeyaan dalal kale waxyaabaha wadamada ay ku xisaabtamaan ama dadka ganacsatada ay ku xisaabtamaan waxa kamid ah tirada dadka maadaama waxa la suuq geenayo ay dad u baahan yihiin ugu dambeyntii saameyn ma ku yeelan kartaa tirada Soomaalida oo 12 milyan lagu sheegay in ay saameyn cagsi ah ku yeelato oo ay maalgashigi ku istaajiso halkaas horta dooda hadda ummadda Soomaaliyeed ka bilaabatay kadib markii la faafiyay qiyaastan kuma jirin xanaad wariyaa marnaba cid hadal haysa ma arag in tiradeeni intii ay ahaan jirtay aad uga korodhay qiyaastii ugu dambeysay oo dalka laga haysto wuxuu ahaa 9 milyan meelahaas ummaddu inay tahay haddana 12 milyan iyo baran ku dhadhownahay oo aysan ku jirin dadka qurbaha nooga maqan oo dadka qaarkood ay dhahan ilaa 2 milyan waa gaarayaan hadiiba la balbalaariyo oo aysan ku jirin dadka xiriyaha qaxootiga nooga jira dhadhaaba noogu sokayso xirada qaxootiga adduunka ugu weyn ah nus milyan qof ku jira halkan kuma jiraan tiradoodu waxaa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed inay 15 milyan guud ahaan gaarayso markii dadkaas hadda naga maqan lagu daro taas marka waxay ka jawaabaysaa qayb kamid su'aashaadii oo ah shirkadaha hadda raba dalkeena inay maalgashadaan waxyaabaha ay fiirin karaan waxa kamid ah tirada guud ee dadka inay fiiriyaan waxbaaba noo kordhay oo dadka isleeyihiin badeecada ah keentaan waa idinka iibsanayaan intii haayeen waa ka badan yihiin dabcan dadku dad sabool ay u badan yihiin oo dad inta badeecado xoog leh loo keeno hadda gadan kara uma badna haddana runtii waa fursad kamid ah fursadaha ka soo dhaxbaxda qiyaastan oo ah dadka Soomaaliyeed intii la filayay aad uga badan yihiin dhalinyarada ama dadka da'dooda ay sodomeeyada tahay tirada ugu badan ay Soomaalida ka yihiin qorshayaasha shaqo abuurka oo aad ka hadashay wax xadidan oo waqti leh ma jiraan oo aad dhalinyarada u sheegi karto runtii anagu waxaan ka shaqeynaynaa waxay tahay qorshihii yareynta saboolnimadana si loo yareeyo asal waxa uu shaqooyin in la abuuro waana midkaan hadda qoritaanka ku wadno rajadeennuna waxay tahay in natiijada ka soo baxda ay noqoto in dawladdu ay maalgashi ku samaysato iyadoo taageero ka helaysa saaxiibadeeda caalamiga ah ilaha kobciya dhaqaalaha dalka oo ay ugu horeeyaan warshadaha beeraha kalluumaysiga xanaanada xoolaha iyo ilaha kale ee lagu yaqaan dhaqaalaha in si dhaba loo maalgashado iyagana markaas la kordhiyo dadka Soomaalida ay ka shaqeeya xirfad la siiyo farsamada gacanta oo kale tababar runtii lagu sameeyo waana meelaha aan xoog saari doono hadda marka aan qorno qorshahaas yareynta saboolnimada ama istaraatiijiyada yareynta saboolnimada markaan qorno inaan xoog ku saari doono hadii alla idmo kadibna dabcan waxay u baahnaan doontaa in dawladdu ay si miir leh ay markaas xoog u saarto ilaha oo dhan ka dawlad ahaan ma leenahay itaalki dhaqaale ee loo baahnaa inaan ilaha oo dhan hadda maalgashi samaysano ma lihin laakiin waxaan awoodnaa inaan hal ama laba ilo dhaqaale oo xoog aan si xoog leh intaan u maalgashano aan kamera dhalino gargaarka markaan maalgashi ka nimaano hay'ado badan oo qaramada midooba kamid ah dadka wax ka sameeyay ama idinka caawiyay qiyaastan ma laga yaabaa inay u isticmaalaan si ay u qoondeeyaan qoondada gargaar ee gobolada la kala siin lahaa waniga daayiri jaangooyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed qiyaastani ma horseedi doonto loogumana talagelin waxay hor u dhac u tahay kaliya tirakoob soo socda kaas hadiiba wax la jaangooyin doono kaas lagu jaangooyin doona hadda qiyaas guud inaan ka haysano ayaa muhiim ah
qiyaas guudna hadda waa ka haysanaa dabcan la iskuma raacsana dood xoog lahaa ummadda ka dhex taagan dadku waa saluugsan yihiin tirada goboladu waxay leeyihiin gobol hebel soo nooga badan karaa midna ummaddu hadda intaan ka arkay waa ka siman yihiin oo ah gobol walba ay wuxuu aaminsan yahay in isagana la yareeyay kuwa kalena la badiyay taa marka waxay u dhigantaa runtii sida ummaddu u wada guuxayaan wax uma wada jiraan oo ah in qoladu ay aaminsan tahay qolo walba in qolo hebel laga badiyay ama laga yareeyo cid aniga aan ogahay inuu u roonaaday qiyaastan ay u roonaato ama ay ka roonaatayna meel kuma ogi in khaladaad jiraanna waabataan qirnay oo niri khaladaadkaas iyo sidii loo sixi lahaana annagaaba diyaar u ah iyo ciddii nagala shaqaysay laakiin midda muhiimka runtii waxay tahay wax jaangooyo ah oo ka dhalan doonta arrintani runtii inaysan jirin taasaa muhiim noo ah annaga gobolka banaadir waxaa lagu qiyaasay in 1,650,000 meelaha dooda ugu badan ay ka taagan tahay ku jira dadka sida caadiga ah caasimadda meelaha ay kusoo urureen ay kamid tahay magaalooyinkan sida aadka loo jooga wuxuu ku dhadhow yahay gobolka waqooyi galbeed iyo shabeellada hoose qiyaastaas shakhsiyan adiga ma kula tahay wax macquul ah oo dadku ay dhageysan karaan anigu aragti kama lihi qiyaasyada laga bixiyay daraasaddu ay samaysay saan horeyba u sheegay marar badanna ku celceliyay daraasadan samaynteeda iyo dhammaystirkeeda waa iga horreeyay mas-uuliyad dastuuri ay saarneed oo keliya ah faafinteeda inaan faafiyo waana faafiyey laakiin waxaan ku kalsoonahay in 4,000 oo qof oo Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee saaxiibada aan nahay naga caawiyay aanay isku raacin in gobol gooniya la yareeyo ama mid kale la badiyo aanay isku raacin dabcan gobolka banaadir meelaha ugu badan oo hadda sheeganayo kamid yahay oo leh 1,600,000 wax ka badannahay warka xamar lagu hayeen wuxuu u badnaa 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan oo qof ah magaaladan ku nool hadduu khalad jiro looba joogay waaba soo bixi doonaa markii tirakoobka rasmiga la sameeyo laakiin runtii in qolo walba ay tiraahdo qola hadda ku qanacsan oo leh wallahi annaga tiradaasna la siiyay waa iimaansanayna waan la dhuumanaynaa waxaaba laga yaabaa inaysan runtii jirin taasna waxaa laga yaabaa inay astaan u tahay cid hadda loo roonaaday cid laga roonaaday runtii inaysan jirin ummadii inay badatay shaki kuma jiro markii ugu dambeysay oo qiyaasba la sameeyay tirakoob waxaa noogu dambeysay 40 sano ka hor qiyaasna waxaa noogu dambeysay hadda 2005 xataa qiyaas ay jirtay UNT ay sameeyeen intii aan ahayn 3 milyan oo ka badan aan ka badanay xagee ka kordhay dadku qol walbana waa leedahay waana la yareeyay waa su'aalaha aan u baahanahay runtii inaan ka jawaabno mustaqbalka haddii alla idmo tirakoobkan waxaa idinkala qayb qaatay ama si xoog leh idin caawiyey hay-ado in hay-ado aan Soomaali ahayn ay idin caawiyeen ma waxay idin siinaysaa in qiyaasta la aamino mise dhanka kale u wareegaysaa oo wax ajnabi uu ku lug leeyahay inaad soo bandhigteen ay idin siinaysaa xagasha ka fiirsay ku xiran tahay UNFPA 192 dal oo adduunka ah ay ka caawisay xagga farsamada naqshadeynta habka ururinta xogta hay'ad caalami oo qaramada midoobay ka tirsan shaqadeeda ugu muhiimsan ay tahay qiyaasyada noocan ah iyo waliba tirakoobyada inay ka caawiso dalalka reer galbeedka ah aad u horumaray oo iyagu teknolojiyada loo baahnaa iyo aqoonta iyo kartida loo baahnaa lama ogiye iyo dhaqaalihi loo baahnaa dalalka adduunka intooda badan ma leh kartidaas gaar ahaan kuwa Afrika u badan waa ka caawisay anu intaan ogahay kalsooni darrada ummadda Soomaaliyeed dhexdeena nagu jirta waxay horseeday marar badan inaan aamino dadka aan Soomaalida ahayn waxay noo sheegaan waxa dhici karta hadda hadii magaca wasaaradda qorsheynta laga tiri lahaa daraasadaas oo UN ta kaliya lagu qori lahaa in dad badan ay soo dhaweyn lahaayeen mana la yaabaniyo arrin aan ka garaabi karo waay runtii maxaa yeelay kalsooni darra nagu jirta waa isdirirnay waa iscolaadinay waa isbaabi'inay waa isdhacnay waxa laga yaabaa 14% aan akhrina ninkii aan aqaana ninkii kama akhrisanaya ka adaga la yiri saasoo kale anaga noo maraysaa qayb kamida waa kalsooni dhisida muddana waa qaadan doontaa intaan ogahay laakiin dadku marar badan waxaad moodaa markii la yiraahdo wallahi hay'ada UN iyo waxaas wax sameeyay gaar ahaan waxaan oo kale inay u bataan inay aaminaan hadda dad badan waxaan ku arkay internetka waxay soo bandhigeen qiyaas ay UN tu sameysay 2005 ay sameysay oo aanay dawlad markaas la sameysay aanay jirin taasay hadda waxay ka dhigtaan meel ay soo xigtaan reference point oo noqotay marka tanina wax uun baan ku dul dhisanaynaa haddii alla laakiin midda muhiimka waxay tahay runtii arrintani bilowgeedii ilaa dhamaadkeedii dawladda federaalka ay kaligeed ma sameyn
Somaliland iyo Puntland qayb ka ahaayeen macnaheedu ma ahan inay ku raacsanaayeen natiijadii kuma aanay raacin markay soo baxday dabcan laakiin xitaa mahadcelinta oo daraasadda ku qoran mas'uuliyiintoodii ka qayb gashay waa loo mahadcelinayaa taasna waxay ka dhigantaa markii horeba waxay ahayd dadaal ay isla wadeen maaragtay maamulada dalka ka jira iyo hay'adan farsamada bixisa ma isku daydeen inaad la xiriirtaan oo aad ku qancisaan in warbixinta aan loo isticmaali doonin qoonda siyaasadeed ama qoonda maal oo ay waxyaabaha ay deeq bixiyaasha bixiyaan aan lagu saleyn doonin waaniga ku iribada xiriir kaliya ma ahane wasiirkii ugu horeeyayna waa arintaas maaragtay xiriir joogto ah jira waxa jiray team wada shaqeynaya oo wasaaradda qorsheynta federaalka iyo wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleedyada ka tirsanaa iyo UNFP oo si joogto ah arintan uga wada shaqeynaya hadda anagu markaan nimidna anaaba safar ku tagay iyo team runtii la socday shirar badanna waa ka wada qayb galnay kuwana waa hadda ugu dambeeyeen oo aan rabnay runtii in laga soo qayb galo oo doodaha la qabana meeshaas la keeno qaarkood waa suuroobeen ma suuroobeen xiriir xumo runtii ma jirin laakiin kalsooni darro waa jirtaa taasna waa arrin sideeda u baahan in loo daaweeyo boog ummadda Soomaaliyeed ku dhex jirta way u baahan in la daaweeyo tirada dadka wadamada way ku faanaan dad badan dhaqso waxa ku soo dhacayso in wadamada dariska ah tira ahaan ay naga badan yihiin haddana siyaasad ahaan ay wadankii si ugu lug leeyihiin iyagana ay yihiin dadka tiradan hoos u dhigaya ee faragelinaya taas maxaa kala anu kama warhayo umana haysto in dawladaha dariska ay lug ku lahaayeen ururinta iyo soo bandhigida daraasadan toona inay lug ku lahaayeen dawladaha dariska ay dabcan waa naga badan yihiin annaga waxay la tahay tiro inaan ku gaari doono waayadan uma badna laakiin tayo waa ka tayo badnaan karnaa dadkeenu waxay leeyihiin potentialkii ama sababihii ay tayadooda lagu xoojin lahaa macnaha shakhsiyadda qofka Soomaaliga ah iyo sidoo Ilaahay u abuuray fahamka Ilaahay siiyay kartida Ilaahay siiyay dadkeena waa tageen karnaa wadamada qaarkood adduunka oo laangaabnimo hadii la soo fiiriyo laga yaabo tirahan inay ugu laangaabsan yihiin oo Singapore oo kala ah dhaqaale iyo qab iyo sumcad iyo sharaf iyo aqoon markii la yiraahdo waa ka laan dheeraysan yihiin dalal badan oo iyaga daris la ah oo ka tira badan oo ka awood badan waa ka xoog badan yihiin waxay la tahay marka meesha annaga aan isleenahay dal ahaan runtii waa u dhaqaaqi kartaan runtii waxay tahay laan dheeranimada inaan ka raadino karti iyo aqoon iyo cilmi ganacsi dhaqaale meelaha isleenahay dalalka dariska waa uga hormari kartaan waana kula tartami kartaan tartan xalaala falyatanaafas almutanaafisuun ilaahay yiri waa meelaha noo furan ay kamid tahay gabagabada barnaamijka soo gaarnay qiyaastan tirakoobka ahna waxay dhalisay buuq badan ay ama siyaasadda ha noqoto ama bulshada dhexdeeda ha noqoto wax wasaaraddu ay tallaabo ay doonayso inay ka qaado si ay dadka ugu qanciso qiyaastan inay qiyaas tahay ma jirta runtii labaan u kala qaadaya mid waa wixii ku saabsan qiyaasta sahanka la soo bandhigay taasi waxay qaadanaysaa wajiga labaad ay hadda bilaabmi doona oo ah turxaan bixinta iyo gorfaynta xogtii la xiray taasna waxaan ku marti qaadnay dowlad goboleedyada hadda jira inay nagala soo qayb galaan farsamayaqaanadooda qoladii UN-ta ee arintaas naga gacan siisana way joogi doonaan hadii alla idmo talaabada waa wajiga labaad aan qaadayno taasna waxaan rabnaa inay horseedo markii turxaan bixinta iyo gorfaynta laga dhamaado in la si wada jira hadana loo wada naqshadeeyo qaabkii tirakoob rasmi ah dalka looga sameyn lahaa taas waa hal qodob laakiin taa waxaa dhinac socda arinta ku saabsan kalsoonida darada ummadda Soomaaliyeed ku kala dhex jirta taasina iyadana waa mas'uuliyad ummadda iyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada u taala inay ka fariistaan kalsoonidii soo celiyaan runtiina mar walba aan tallaabo walba oo la qaado aan laga fiirin kaliya xagal waa la igu darnaanaya ama waa la igu roonaanaya kaliya aan laga fiirin laakiin si walaaltinimo looga wada hadlo taas marka waa midaan ka garaabayno waa midaan u baahannahay inaan kalsoonidaas soo wada ceshano heshiiska ummadda Soomaaliyeed aan weli aqabiya aan dhamaystirmin kaasna dawladdu waxbay ka bilowday waxna waa uga dhiman yihiin kaligeedna waajibkaas ma saarno ummadda kale inteeda kalena waa la saaraya marka labadaas aan u kala qaadi lahaa laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan marar badan hoosta uga xariiqnay arintani waa sahan qiyaaseed
labo xogtan 2 sano ay soo socotay 4,000 qof oo wiilashan iyo gabdhaheena ah ayaa ka qayb galay oo dalkoo dhan joogay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa ka wada qayb qaateen markii ay socotay saddex anigu waajibkayga dastuuriga ah wuxuu ahaa faafinta laakiin ururinta iyo dhamaystirka way iga horeysay arintan 5 meeshan u socono waa in tirakoob rasmi ah la sameeyo waana gaari doonaa haddii alla idmo ana mahadsantahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan Cayntee wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka martida toddobaadka barnaamijka aniga oo Cali Nuur ah ayaa soo jeedinayay Khalid Maki ayaa farsameynayay inta aanu dib u kulmi doono nabadgelyo